الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إلهي سبحانه وتعالى يا مهد سقناتي تليها عيدا كدولك سراكيشا مدحدا قرنك أي هلكا كسوغان ضمان عيدا مدى قلب كالسيدا قارهان عيدا كحوق دالك الصوماليات. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. ما أنت ومالين إلهي سبحانه وتعالى ومدى الصوماليات وقر قاري بشاروين واوين يقولوا واوين قوشاس إلهي سبحانه وتعالى أيان نسيي أصدق أيان وقمهد علينا ثم وحارمنا إنا ومهد علينا ضمان عيدا مدى قلب كسيدا قارهان عيدا كحوق دالك الصوماليات وما أنت سورة قليي إن عدوغا laga saaro laba degmo oo waaweyn iyo tuulooyinkii ku hareereysnaa. Degmooyinkaas waa qalcad iyo xarar dheere oo ummadda Soomaaliyeed in muddo ah sugaysay. Waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo geesiyaasha ciidamada qalabka sida oo kaashanaya dadka deegaanka oo aanan loo kala harin waxay maanta ku guuleysteen in ay gacanta ku dhigaan qalcad iyo xarar dheere oo hadda lagu sugan yahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ku sugan yihiin dhamaantood. Waxaan rabaa inaan cadowga oo jabka gaaray ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aynan kibir gelinin oo deegaanada haray aan ka saarno. Cadowgan waa cadow in muddo ummadda Soomaaliyeed dhibaateynayay naftooda iyo maalkoodaba ku dhibaateynayay. Waxaa xaqiiqo ah in maaragta bilooyinkii la soo dhaafay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyagoonan nasan iyagoonan hargelin familkoodii reerahooda arkin ay jiida hore u taagnaayeen nimankan khawaarijta in ummadda maaragta laga qabto u taagnaayeen. waxa maaragta howlgallo lagu jiray oo laga soo bilaabay Hiiraan Shabeellada Dhexe iyo dhammaan gobolada gaar ahaan sida hadda maaragta ku socoto Galgaduud iyo maaragta Mudugba maaragta xaqiiqdii waxaan dhihi karnaa qof soo go'aansaday baa shaqadaas fulin karay. waa u mahadinaynaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ugu horeeyo taliyaha ciidanka maaragta lugta iyo dhammaan saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan waa u mahadcelinaynaa. waxaan kaloo rabnaa inaan u mahadcelino dhammaan maamul goboleedyada qaybta ka qaatay la dagaalanka khawaarijta gaar ahaan Hirshabeelle iyo Galmudug. waxaa xaqiiqo ah haddaanan shacabka Soomaaliyeed aynan ahaan lahayn kuwa horta taagan oo qoryaha sita oo biyaha sida caanaha iyo xoolaha nagu daba sida haddaysan ahaan lahayn guulahan maanta sheeganayna lama gaareen. waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo. waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu hambaliyeeyo madaxweynaha qaranka oo dagaalkan khawaarijta lagu qaaday hormuudka u ah oo dhammaan annaga iyo maaragta xukuumad ahaan iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida u ahaa hoggaan xaqiiqdii habeen iyo maalin aanan ka harsan in maaragta dagaalkaasi uu guuleysto. hadduu furintu joogo iyo hadduu xafiiska joogaba maaragta shaqadaas uu garab taagnaa. waxaan mar labaad leeyahay faanooli fare kama qodna weli Galmudug deegaano muhiim ayaa cadowga gacantooda ku jira. waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socdo in gacantooda laga saaro. reer Galmudug waxaan leeyahay isku tashta. reer Galmudug waxaan leeyahay qarankiina ku tashta. reer Galmudug waxaan leeyahay cadowgu yuusan dib noogu soo laabanin meelihii laga xoreeyay yuusan dib noogu soo laabanin. waxaan maanta oo kale ku qiyaasi karaa kelmadii ay igu magac dareen oo ahayd maanta oo kale madaxaana furan Galmudug oo dhan madaxa furan Soomaali oo dhan madaxa furan. aadaa u mahadsantihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo qiimaha badan leh oo waqtiga iyo maalka iyo xoogga iyo aqliga geliyay oo labadan maalin oo la soo dhaafay hor socday oo maanta aan u taagannahay in xarar dheere gacanteena ku jirto galcad gacanteena ku jirto iyagana waa ay mahadsan yihiin. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.